لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. erayga tarbiya iyo macnayaashiisa maan jeclayna sii sharxo, laakiin waxaan leenahay ilaahay ba subxaana watacaala bini aadamka abuuray, waxaanu u abuuray fitro fiican buu ku abuuray. walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim. ilaahay baa wuxuu leeyahy bini aadamka waxaan u abuuray qaabkii ugu fiicnaa ama sidii ugu roonayd. tarbiyada marka aynu u baahanay maxay tahay? haddii ilaahayba qaabkii fiicnaa wax u abuuray, waxay tahay caalamkan aynu ku nool nahay dhibaatooyin tiro badan baa ka jira oo qofka ka weeciya wadadiisa toosan ee ilaahay uu ku abuuray. sida ninka beeralayda ahi, iniinta ilaahay baa ku abuuray beerta inay baxdo, laakiin haddana waxay u baahan tahay si ay si fiican ugu baxdo in loo helo dhul fertile soil ama dhul wax ka bixi karaan, in loo qodo dhulkoo loo faadfaadho, in la waraabiyo, in geedka ku baxaya laga jaro, in laga daweeyo wixii xanuunee ku dhaca. mumaarasadaasi noocaa ku saabsan ayuu geedku markaasi si fiican ugu baxa. sidoo kale waxaan leenahay bini aadamku wuxuu u baahan yahay wax badan oo dhaqana oo lagu ilaalinayo, lagu dhowrayo, iyo wax badan oo laga fogeynayo. waatan muxaadaro hore kusoo tilmaamay ummaduhu halaagsankooduba inuu yahay markay jiilashooda kamida ay tarbiyeyn kari waayaan, ee uu soo baxo fac dambe oo facaacii hore ama jiilashii hore waxay rumaysanaayeen aan haysanin. tarbiyadda markaasi aan rabna, ummad waliba qaab ay waxu tarbiyadaysata bay leedahay. maalan culamaai tarbiya alxadiisa waxay yidhaahdaan addimuqraatiya watarbiya, buugga la yidhahdo ninka qoray oo John Dewey la yidhaahdo, kamidana culamada maraykan, ayaa wuxuu leeyahay ummaddu ma noolaato haddaan la cusboonaysiin. cusboonaysiinta ummad la cusboonaysiiyo macnaheeduna wuxuu yahay dadkeeda yaryar oo lagu tarbiyeeyo afkaarta iyo caqaa'idda ay rumaysan yihiin dadkoodii waaweynaa, si looga dhigo kuwo si fiican wax u dhaxlay. waxaan leenahay marka maan jecli inaan in badan kasii waramo tarbiyada, laakiin waxaan jeclay inaan wasaa'il tarbiya ka waramo cumuuman. laakiin waxaan leeyahay waxaan jeclay inaan eray idiin tilmaamo oo ah inaad kala garataan waxbarashada iyo tarbiyadu waa kala laba. waxbaridda qofku inuu macrifo helo, inuu cilmi helo, iyo in la barbaariya waa laba shay oo kala gedisan. waayo waxbarashadu keligeed waxba ma anfacdo haddii aanay tarbiyadu la socon. bale waxaa laga yaabaaba caalamka dadka ugu mujrimsan, ugu dambifalka badan leh, ugu faasiqsan, ugu xumi, inay inta badan noqdaanba inta musqafiinta lagu sheego ama inta aqoonta jaamacaadka ka baxdiya. waxaa aqoonta jaamacadeed waxba tari mayso hadday tarbiyadu xuntay. walidalik ba waxaan idin tusinaya tarbiyada iyo macrifada iyo tarbiyadu inay kala nooc yihiin. masalan waxaa laga yaaba inaad dakhtar u tagto, dakhtarka waxaa laga yaaba inuu ku yidhahdo sigaarku wuu xun yahay, waa sun, waxan baa laga qaadaa, waxa inuu kuu sharxo. 7 minid kadibna waxaa laga yaaba inaad aragto dhakhtarka laftiisiiyo buufinaya. xaguu cilmigiisii ka dhaaf sawkan isagu sheegaya inuu waxa kani sun yahay, caynkan iyo saasan yahay. waxaan leenahay dhakhtarka waxa haysato tarbiya xumo, waxaan loo kobcinin qaab uu waxa kan isaga daayo. waxa uu garanaya inay xun yihiin, laakiin siduu isaga dayn lahaa baan loo kobcinin. idan tarbiyadu way ka gedisantahay cilmiga. ilmahoo iskuulka loo diro cilmi soo barta oo keliya maaha. waxaan kaloo leenahay bini aadamka tarbiyadiisu waa wax wakti badan u baahan. noolaha kale in yar baa la kobciya. tusaale jira had iyo gooraan dadka soo qabto. masalan waxaa laga yaabaa bisada cimrigeedu inuu 5 sano meelaha noqdo. 5 sanadood waa imisa bilood? waa 60 bilood baa laga yaabaa cimrigeedu inuu yahay. 60kaa bilood bisada intee la koriya? waxaa laga yaabaa hooyadeed inay ka wado maxay bil marka la kobciyo, marka dambe inay suuqeeda gasho. ugu badnaan 2 bilood dheh. haddaynu idhaahno bil baa la kobcinayaana waa 1/60. cimrigeeda marka 60 meelood loo qaybiyo meel kamida baa la barbaariyey.
haddaynu idhaahno 2 bilood baa la kobcinaya waxa weyaan cimrigeedii marka 30 meelood loo qaybiyo ayaa meel la kobcinaya 29 meelood kale iyada ismaamulaysa. laakiin bini aadamku ma lamidi bini aadamku waxa laga yaabaa cimrigiisu inuu 60 sano yahay 60 sano waxa laga yaabaa in 20 la korinayo ama 15 la korinayo. macnaheedu waa maxay? cimrigiisii marka 4 meelood loo qaybiyo ayaa meel la wada wakti ka ballaadan markaa waktiga noolaha kale uu u baahan yahay oo dhan ayuu u baahan yahay insaanka kobcitaankiisa. waxaan leenahay barbaarintuna waa shayga waalidku uu ku xaq mutay inuu helo in loo naxariisto. qur-aanka ilaahay wuxuu ina baraya inaynu waalidkeen u samafalno. maxaa loogu samafalaya waalidkeen? ilahay wuxuu leeyahy waxaad tidhahdaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. ilaahay oo u naxariiso labadayda waalid. cilada aad ugu rabto in ilaahay waalidkaa u naxariisto waxaan aad uga abaalmarinaysaa waa maxay? kamaa rabbayaani sagiira. siday iisoo tarbiyeeyeen markaan yaraa. maaha siday wax iisoo cunsiiyeen, waa siday iisoo tarbiyeeyeen. soomaalida waxa laga yaaba waxay inta badan ka fekertaa inuu yahay cunada. ilmihiisa qofka soomaaliga wuxuu ka fekeraa inaanu gaajoon, meel aanu ku gaajoonin inuu geeyo, laakiin aanu eegin dhaqankuu samaynaya wuxuu yihi iyo waxa uu ku dhaqmayo toona. arrinta muhimkiina maaha waxuu cuno. qofka bini aadamkii waxuu cuno waayi maayo intuu nool yahay. laakiin waxaa muhimkii wuxuu yahay in la helo qofku qaabkii uu u dhaqmi lahaa in loo kobciyo. waalidku inuu mas-uuliyad qaado ah inuu soo saaro qofkii uu doonayey. si ay taasi u dhacdo waxaa laabuda baynu leenahay arrimo badan. wuxuu u baahan yahay juhdi bini aadam. ilaahay wuu awoodi karaya subxaana watacaala inuu qur'aan qura intuu soo dejiyo dadka la baro. qof walba kitaabka loo dhigo la yidhaha iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka hasiiba, oo qof waliba uu akrii karo. laakiin ilaahay wuxuu soo diray rusul. rususha maxaa loo soo diray? waxaa loo soo diray inay ummadda tarbiyeyso oo ay ku kobciso wixii ilaahay soo dejiyey. waxaan leeyahay markaa tarbiyadu way ka gedisantahay tacliimka, way ka gedisantahay macrifada. tarbiyadu ama barbaarintu ama kobcintu waa shay waxyaabo badan u baahan. ilahayna wuxuu ina leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikaة gilaad shidaad laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna ma yu'maruun. alle wuxuu qur-aanka ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu, waa kuwa iimaanka laga helayo, quu anfusakum waahliikum naara. naftiina iyo ahalkiinaba waxaa ka dhowrtaan naar baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. naarta waxaa lagaga dhowri karaa iyadoo loo kobciyo shaygii loo baahnaa. waxaan markaa leeyahay ummaddu way tirtirmaysaa haddii aynan dhasheena si fiican u tarbiyeynin. tarbiyadu cilmiga kale waxaa laga yaabaa inuu yahay cilmi uu u baahan yahay mujtamacu, laakiin qayb kamida hadday barato ay ka kaafiyeyso. waxaa laga yaabaa physics, biology, chemistry, waxaan jaamacaadka iyo iskuolka lagu dhiganayo o dhan bulshada hadday qaybi barato intaasaa ku filan oo bulshada kale noloshii la wadaysa. laakiin tarbiyadu taa way ka gedisantah. tarbiyadu waa arrin looga baahan yahay guri kasta oo muslima. hooyo kasta iyo aabbo kasta intaanu qofku aabbo noqon ama hooyo noqon waa inuu bartaa sida wax loo barbaariyo. ma aha in la barto qura sida wax loo dhalo, ee waa in la bartaa maxay? sida wax loo barbaariyo si loo soo saari karo bulshadii loo baahnaa. idan waa cilmi baynu leenahay uu u baahan yahay guri kastoo muslim. waa waajibka saaran gabadh kastoo muslimada iyo aabbo kastoo muslima. maadaama qadiyadu ay caynkaa tahay, ma jecli inaan muxaadaradayda in badan ku raago tarbiyada, waayo mawduucu maaha tarbiya. mawduucu waa wasaa'il tarbiya, waa qaabka wax loo tarbiyeeyo. muqadam ahaan baan u jeclaystay inaan erayada tan idhaahdo, laakiin waxaan uga gudbayaa mawduucaan u socday oo ah maxay yihiin wasaaisha aynu adeegsanayno. ummad waliba waxay u baahantay inay dhasheeda tarbiyeyso. ummad kale ay wax u tarbiyeysaa ma jirto, wailaa waa ummad halaagsanto dadkeedii la dhaxlay.
waxaa haboon inaynu ka fekerno markaa dadkeena saynu u tarbiyan lahayn. caruurtaad dhashay sidee baad uga dhigi lahayd caruur waxaad adigu aaminsan tahay ku dhaqmi karta. waxaa laga yaabaa in badan oo idin kamid inay ka cabanayaan oo leeyihin maxaanu yeelaa dhashii baana maqli weyday, dhagahu uma daloolaan, way madax adkaadeen, waa sida tan, way xumaadeen. waxaan leenahay inta badan waxaa sababay inagaan garanaynin sidaynu u kobcin lahayn, sidaynu ula macaamili lahayn. tarbiyada markaa wasaa'il badan baa la isticmaalaa. waxaan jeclay inaan soo qadimo alwasaa'il alijtimaaciya ama wasiilooyinka bulshadu ay u baahantahay inay adeegsato si ay u tarbiyeyso dhasheeda. wasiilooyinkaa waxa ugu horeeya waxaa loo yaqaana alqudwa alxasana, kudayashada fiican. kudayashada fiicani maxay tahay? waxaan leenahay qofka bini aadamka ah markaynu abuurkiisa ka waramayno, sida alla u beeray ee u abuuray, qof kasta oo bini aadami markuu yaryay ama bini aadamka wuxuu ku abuuran yahay, khaasatan marka uu yar yahay aanu garaadkiisu badanin, waa maطbuuc cala almuxaakaati wataqliid. waxaa alla ku abuuray kudayasho tiro badan leh. ilmaha yari indhuhu kala qaadaa, waxa u horeeya wuu hor arkaana waa waalidkiis, waa aabihii hooyadii. waxa ku xigaana markaasi waa ama qaraabadii ama macalinkii wax u dhigayay iyo kuwaas. ilmahaasi adigu ama dareen ama ha dareemi, biduuni shucuura waa la shucuur, adoo dareemiyo adoon dareeminba wuxuu qaadanayaa dhaqanka guriga yaalla dhammaantii. idinka waxaa laga yaaba inay tileedin carruurta wax ma fahamto, dharabta markay saarantay waxbay fahamtaa, laakiin waanay hadal. ilmuhu marka uu soo dhaco laga bilaabo ayuu fahamkiisu bilaabma, waxbuu fahmaya. adawaadkiisa, maqalkiisa iyo dhegtiisa markay shaqeeyaan buu ka bilaabaya inuu wax fahmo. wax badanoo adigu aad leedahay waa ilmo yaroo halkuu iska jiifa isagu iyo masaasada udhiib aad leedahay oo aad moodaysa inaanu wax garanaynin, wax badan buu garanaya. qaabka aad u hadlayso, sida aad u dhaqmayso, sida aad u dareemayso ama si aad u fakerayso, sida aad u xanaanaynayso, waxaasoo dhan wuu dareemaya. guriga waxa ka socda oo dhan wuu garanaya. waxaanu ku abuuran yahay weliba inuu isku dayo inuu ku daydo ciddan guriga joogtaa waxay samaynayso. haddii markaasi gurigu uu yahay guri dhowrsoon, hooyadii aabbaha ku nooleeyiin kuwa dhowrsoon, kuwa deeq badan, kuwa cafiifiina, kuwa runsheeg badan, kuwa geesiyiina, sifaadkaasi adigoo aan u sheegin ilmaha buu qaadanaya, dhaqankiina aanu ka qaadanaya. ilaahay isagoo inooga digayo markaa in dhaqankeena iyo ficilkeenu iskhilaafo ayaa alla wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna ma laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun. yaa ayuha aladiina aamanuu, war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahy lima taquluuna maxaa u odhanaysaan maa laa tafcaluuna waxaydan samaynayn. yani maxaa hadalkiina iyo ficilkiina iskhilaafiyey? waxaana ku hadlaysaan muxuu xaq u noqon waayo, camalkiinuna si uu xaq u noqdo. kabura maqtan cinda allahi an taquluu ma laa tafcaluun. alle agtiisa waxaa loogu cadho badan yahy inaad tidhaahdaan baa ilaahay leeya waxaydan samaynaynin. ilmuhu markuu yaryay waxa fudud markaa inaad adigu wax ku akrido istidhaahdo sidaa ha noqdo, hooyo sidaa yeel oo sidaa yeel oo ad wax ku akrido. inuu aqbalaate waxaanaad sheegaysaa way adagtay haddii aanu haysanin qudwadii. inaad wax u sheegtaa way fududay oo hooyo faysig aad noqoto, aad wax akrido, aada habeen iyo maalinba u sheekayso aanad ka aamusin. laakiin waxaanaad ku akrinayso inuu aqbalaa ama macalinku wuxuu akrinaya inuu ilmaha ka daadegaa way adag tahay haddii aanu ilmuhu arkaynin wixiiyo practicala. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay culamaai tarbiya alxadiisa ama educationka nimanka maanta dhigaba waxay leeyihin, oo runtii xaqiiqa waaqiciya kuwana quri male, waa mas'ala waaqaca nololeed ka muuqata. qur-aankuna uu tilmaamayo sunada nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa la tilmaamaya qofka bini aadamkaa waxa uu arko iyo waxa uu maqlo inay noloshiisa ku raad badan tahay waxa uu arkaa. waxaanaad sheegaysa ku hadlaysid
iyo ficilka uu adiga ka arkayo ama guriga uu ka arkayo walaaladii iyo aabihii iyo hooyadii iyo reerkan siduu u dhaqmayo, naftiisa waxaa ku raad badan waxan uu arkayo. sideedaba waxa la dhaha qofka bini aadamkaa dhegsiiyo isha, maskaxda waxa raadayn og isha. waxa lagaaga sheekeeyo iyo waxaad aragto masku sibay maskaxdaada ku yimi. wixii lagaaga sheekeeye waxa laga yaabaa inaad ilowdo. dhacdooyinkaasee isha soo saartay waxa laga yaabaa in badan oo noloshaada kamid a inaad dib u ilaabin, inay maskaxdaada ku qormaan. taa daraaddeed baa waxaa jirta maanta culamaai tarbiya ama culamadan educationka ka warantaa waxay rumaysteen inay adeegsadaan aqoonta ugu fiicane qof wax lagu baraa inay tahay in wixii oo suwara la tuso. bugaagta caruurta waa aragteena wuu ka suurada badan yihin bugaagta dadka waaweyn loo dhigo. sababtu waa maxay? waxaa laga yaaba buugga ilmahaaga yar caruurta u dhigto markaad soo qaado waxa ku dhigan oo dhami waa wada sawir, magacyo yaryar ku hoos qoray. haddii digaagad loo dhigayo ehen khaliya looma dhigayo, digaagadii baa sawiran, dabeetana jisis ehen baa ku hoos qoran. sababtu waxay tahay bay leeyihin ilmuhu wuxuu isha ku arkaa maskaxdiisa ku raad badan. in loo sheego ladhaha digaagad baa ladhahaa in la tusaabaa kaga raad badan, ama sawirkeedii inuu arko. sida daraaddeed bay culamaai tarbiya waxay leeyihin haddii la rabo tacliimtu inay qofka si fiican uga daadegto, waxa uu arkaya waa inay ka bataan waxan uu maqlayo. walidalik baa caruurta qura kuma koobnee maanta waxaa ogtiin ilaa iyo heer jaamacadeed ama nolosha bini aadamka o dhan in laysku dayo in qofka waxa loo dhigayo practical loo tusi karo, in laab la geliyo oo markaasi laysku dayo qofku wixii theoretically nadariyan wixii uu dhigtay in isagoo dhaba la tusi karo. waa ogtiin maanta tv-ga maxaa loo isticmaalaa? warka miyaanu ku fillayn warkan raadiyoga ka baxaya. waxay ogyihin ishaadu waxay milicsatee marku dhaca walow adigu hauga qasdiina inuu maskaxdaada ku raad badan yihi. markaasaa la rabaa fusuqan iyo iclaanaadkan iyo waxaan la xayaysiinayo o dhan si maskaxdaada uu ugu reebmo suurad yaroo cajiiba waa in lagu hormariyo oan maskaxdaada markaa ka fogi karin. waxaa laga yaabaa iclaanaadka tv-giina kasoo baxo dhan ina imka wada qaybsantii. waxa idin qaybsiyey waa suurad yaroo mar laydin hormariyey ayaa maskaxdaada ku rakibantay. markaad suuraddii aragta waad garanaysa waxa la hayaysiinaysaa wixii. hadalkase inaad hore u qabateen baa laga yaabaa. sida daraaddeed waxaan leenahay ilaahay markuu soo dirayey kitaabada rusul ayuu soo raaciyey. rususha maxaa loo soo raaciyey? inay noqdaan tusaalihii lagu dayan lahaa, qudwa inay ummadda u noqdaan. lama odhan un run sheega ee waxa lasoo diray rasuul run sheegaya. lama odhan geesi noqde wax lasoo diray rasuul geesiya. lama odhan in dhowrsanaad ee waxa lasoo diray rasuul dhowrsan. lama odhan jihaad ee waxa lasoo diray rasuul jihaadaya. yacni practically wixii oo dhan cid u fulinaysaa lasoo diray. ilaahayna wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. dadka muslimiinta ahow ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan ku dayasho fiican calayhi salaatu wasalaam. waxaa alla leeyahy subxaana watacala intuu nebiye ka waramay ulaaika aladiina hadaahum allahu fabihudaahu muqtadi. kuwaasi waa ambiyadii ama waa kuwii ilaahay ka waramay, waa kuwa hanuunsan kuwaasiye war hanuunkooda ku dayda. waxaan leenahay marka caaisha ilaahay raalli ha ka ahaadayba su-aal la weydiiyey laleeyahay nebiga dhaqankiisa ka waran calayhi salaatu wasalaam. dabeetana waxay ku jawaabtay kaana khuluquhu lqur'aan. waxaan leeyahay marka haddaad rabto ilmaha guriga joogaa inuu ilmo fiican noqdo, aabbaha iyo hooyadu waa inay fiicnaadaan. haddaad rabto dadka siduu ula dhaqmi lahaa inay wanaagsanaato, aabbaha iyo hooyadu waa inay wanaagsanaadaan sida ay u wada dhaqmayaan. tusaalayaal baan jeclay inaan mid kasta gaarka u keeno, laakiin alqudwa alxasana masale kalaan sii raacinaya oo ah guriga marka la dhaafo iyo madrasada iyo iskuulka iyo suuqa intan marka la dhaafo ciddii ku dayanayo qofka cid fiican noqoto. qofka bini aadamkaahi wuxuu leeyahay wuxuu hiigsado. ma jecla halku maanta jooga inuu berita joogo, wuxuu jecel yahay inuu tatawuro oo meel hiigsado. waxay idhahdaan culamaai tarbiya qofka bini aadamkii markaa wuxuu u baahan yahay bay idhahdaan waxaanay maanta u bixiyeen stars, xidig ayuu u baahan yahay ku daydo. markay ogaadeen inaan bulshadu xidig la-aan noolaan karin ayay gaaladu waxay sameeyeen stars waxa la yidhahdo xidiga kubadda cagta, xidiga heesaaga ah, xidiga filim actarka ah. maxaa kuwan xidiga loogu bixiyey? maxaa stars looga dhigay? way loogu bixiyey kuwan stars maxaa xidiga ka dhigay? waxaa la rabaa inay noqdaan namuudajkii tusaalihii ummaddu ay ku dayan lahayd. waa sida ay la rabaan.
tusaalahaasi isagoo aan waxba sharxin ayay dadku ku dayanayaan mar haddii la dejiyey boodkii tusaalenimada, isagoo aan waxba ku hadan. masalan su-aal idin weydiiyo, miyaa maqasheen Bob Marley wax muxaadaro ujeediyo ku saabsan in raamo la yeesho? ragga suuqa Soomaalida rag raamo wada leh. miyaa ka maqasheen Bob Marley in lagu dayanayo ama nimankan rastada sameeyay intay muxaadaraad qabteen lectures jeedinaya oo la dadku rasta ha yeesho? waxa laga yaabaa dadkaasi inaanay cidiba maqal cid rastada ka muxaadaraynaysa, laakiin maxay arkeen? waxay arkeen nin xidig loogu sheegay oo raamale dabeetana raamay wada yeesheen. waxa laga yaabaa inaad aragto mid dhaqoorka intaa isxiiray, xagga kale intaa isxiiray, xaggana yar ku reebay. muxuu sideetan u sameeyey? wuxuu arkay xidigii heesaaga hee fulan la odhan jiray, Michael Jackson aw fulan Jackson aw mid kale un ayuu arkay oo nooca kana. ninkani miyuu khudbad jeediye u yihi wardadow dhafarada xirta? maya. laakiin waxay dadku arkayeen hisfa xidig buu ahaa, dadka ummadda xidig looga dhigay. idan waa inay shabaabku ku dayda. ummadi ma noolaato bay markaa yidhahdaan iyadoo aan isfaaris lahayn. daday hiigsato ay ku dayato waa inay yeelataa marka qudwa xasana la helo. waxaan leenahay ummadda muslimiinta ilaahay subxaana watacaala wuxuu u sameeyey cid ay ku daydaan. almasal ilaclaa lilumma waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. gurigu waa qudwadii, alqudwa gurigaa looga baahnaa. laakiin misaalka sare la hiigsanaya muxuu yahay? noloshoo dhan kaaga sarreeya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam. ilahayna wuxuu leeyahay in tutiicuuhu tahtaduu. idan waxaan leenahay fi lxayaa laabudda min masal ilaclaa. noloshu kama maaranto tusaale sare inay yeelato. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday dadkan iyagu xidiga haystaan, inagu cadceed baynu haysanaa, xidig ka weyn. waayo fii kulli majaalaati alxayaat buu isagu tusaale keligii ka yimi. waxaan leenahay markaa xidig ka weyn waa cadceed. walidalik ayaa waxaan leenahay hadday run sheegista, hadday tay mabda'aagoo daacad loo noqdo, hadday tay dadkoo diinta la gaadsiiyo, nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tusaalaha koowaad ah. waayo ilaahay isagu ku lahaa falacalaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafa. isagaa ilaahay tilmaamayo lalahaa naftaada ha ku goynin ama se ha ku idlaynin dadkani haddii iimaan laga waayo. waxaan leenahay tusaalu cibaadada inoogu ahaa, ama xidig buu cibaadada inoogu ahaa. ilaa xad siduu u tukanayey markay cibaadadii ka tiro badatay gomadu habeenkii ay bereraysay. caaisha ay ku lahayd ilaahay rasuulkiisiiyo adiga dembigaagii hore iyo dembigaagii dambeba ilaahay wuu dhaafaye maad bay ku tidhi dee nafta dhowrta, afalaa akuna cabdan shakuura buu ugu jawaabay. haddii aniga ilaahay dembigaygii dhaafay miyaanan anigu noqonaynin qof mahadnaqa haddaba? wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu ahaa masal ilacla fi lkaram, waxbixin, deeq. ilaa xad anas ibnu malik uu leeyahy weli nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wax la weydiistay maya ma odhan. wax qof bini aadami intuu u yimi uu yihi waxaasaan doonaya mayaba kuma odhanin. wuxuu xidig ama si cadceed inoogu ahaa zuhdiga iyo dhowrsoonaanta iyo hunguriyarida. markaasu wuxuu ku ducaysanayay nebigu allahuma ajcal risqa aala muxammadin kafafa. waxaa laga yaabaa madaxdeena waxay isku dilaysaa dadka sidii loo cuni lahaa, laakiin nebi maxamed isagoo ummad dhan hogaaminaya ayaa ducadiisi waxay ahayd haddana ilaahu reer nebi maxamed arsaaqdooda wax yaroo ay ku dhowrsanaan un ka dhig. ma odhan maal badan iyo ilaahu in yaroan ku dhowrsanaano un buu leeyay isagoo ummad dhan hogaaminaya. wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam tusaale inugu ahaa fi tawaaduc. nolosha sida uu u noolaa, noloshiisu sophisticated may ahayn nolol adag. walidalik ayaa isagoo rasuula calayhi salaatu wasalaam, isagoo sayid waladu aadamba wuxuu dhalay kii ilaahay agtiisa ugu sharaf badnaa, isagoo ummadii muslimiinta madaxweynihii ay lahaayeen ee ummadda dhan hogaaminayay, ayaa noloshiisa basiidnimadeedu waxay ahayd maradiisu markay dilaacday isagaa tolan jiray, kabtiisu markay ka go'do isagaa yeelan jiray oo kabtiisa samaysan jiray, gurigiisa markuu tago isagaa ka shaqayn jiray. caaisha saxiixu muslim xadiidkii ku yaalay baa waxaa la yidhi aragnay nebigu markuu masaajidka jooge ama dabadda jooge markuu guriga tago muxuu qabtaabay ku yidhaahdeen. caaisha saxaabadii waraysanaysa waxaa la weydiinayaa nebigu muxuu sameeyaa markuu guriga tago. kaana yakdum ahlaa bay tihi, dee reerku u shaqeeyaabay tii. markuu guriga joogana
waa fardi reerka kamid oo shaqaalaha reerku kamid yihi, idan meel ma fadhiiste dadku la shaqaystaa bay leedahay caaisha. idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisao dhan ba ahayd maxay? nolol mutawaadic oo dhulka taala. waxaan leenahay marka waxaan ka hadlayay carruurta saa loo tarbiyeeyo, waxaanan tilmaamay mawduucaan ku tilmaamay alqudwa alxasana iyo almithaal ilaclaa. maxaan uga dan leeyahay? waxaan leeyahay carruurta intaynan waxu sheegin wadcigan aynu la rabno inay noqoto waa inay ka aragtaa dhaqan guriga yaalla inuu yihi. aan tusaalayaal idin siiya haddaba. tusaalaha koowaad, beenta maxaa u taqaani? beenta waxaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy inamaa yaftari lkadiba aladiina laa yuuminuun. beenta waxaa sheegaba ilahay yidhi oo been abuurta dadka aan ilaahay rumaysnayn. waxa uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inta la yidhi muminku ma zinaysan karaa buu haa yidhi, ma xadi karaa ha, dunuub waaweyn baa la weydiiyey, muminka ma ka dhici kartaa ha buu waxaasoo dhan yahi. markaasay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo muminku been ma sheegi karaa? markaasuu yihi le maya. beentu idan waa wax fool xun. sidee buu nebigu ugu tarbiyeyey markaa mujtamacii muslimiinta inaanay been sheegin? xadiidka uu warinayo abu daawuud iyo bayhaqi, cabdillaahi bnu caamir laga warinayo, saxaabigaasi ilaahay raalliha ka ahaadee wuxuu leeyahay anigoo yar oo guriga iyaga jooga oo hooyadii iyo gurigoodii isagoo la jooga ayaa nebigu noo yimi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. nebigaa soo booqday, xaafad saxaabadii kamiduu nebigu booqanaya. dabeetana nebigoo guriga fadhiya ayaa ilmihii yaraa baxay. ilmaha yar bay doonaysaa hooyadii inay u yeedho. waxay leedahay tacaal ya cabdallah, cabdilaahow ya cabdallah tacaal xataa ucطiyak bay leedahay. cabdilaahow kaalay hooyo aan wax ku siiye. waa hooye ilmaheedii u yeedhaysa. waxay ku leedahay hooye ii kaalay waxbaan ku siinayaa. su-aal buu nebigu weydiiyey markaa, maxaad siinaysaa buu ku yidhi. waxay tidhi waxaan rabaa inaan timir siiyo. wuxuu nebigu yidhi haddaanad timir siin lahayn been baa lagu qori laha. carruurta in been lagu madadaaliyaa ma banaana. haddaad ilmahaaga tidhahdo kaalay hooye waxbaan ku siinaya, markuu kuu yimaadana aad qabsato, dariskii koowaad ee beenta adaa baray. weligaaba dhee hooye beenta lama sheego. dariskii koowaad ee sida beenta loo sheegaa guriguu ka qaata. mashkilad maaha markaa isaguna berita markaad tidhahdo orad malcaamadii qabo ama iskuulkii qabo intuu suuqa iska galo, hadhow markaad tidhahdo xaggaad ka timi hooyo, uu ku yidhahdo waxaan ka imi iskuulkii, intuu meelahan dhexe kasoo wareego. waayo adaa baray waaqaca iyo waxa la sheegaya inay iskhilaafaan. aduu kaa arkay inaad odhanayso kaalay wax ku siiye oo dabeetana aad qabanayso. aabbuhu ka arkay inuu leeyahay aabba waxbaan kuusoo iibinaya, guriga sii joogo iskaga reebayo, oo markuu tagana aan waxba usoo iibinaynin. waxaan leenahay marka haddii aynu rabno masalan ilmaheenu inuu ka xoroobo inaanu been sheegin, waa inaynan been kula dhaqmin. ha is odhanin caqli ma leho wax fahmi maayo, uu fahmaya. ha ku talagelin inaad marnaba been u sheegto. ku talagal waxa aanad siinaynin inaad isku daydo inaad ka qancisid. laakiin ha is odhanin yani waxba fahmi maaye ku khawaysiyo waxa waxaad tidhahda adigoo suuqa qabanaya, hooyo waxaan kasoo noqonaya madbakaan gelaya aye iska sii fadhi. waa ko. tusaale labaad baan idin siinaya oo cadaaladda ku saabsan. waxaad jeceshahay ilmahaagu inuu caadil noqdo, inaanu hadhow dulmi samaynin, inuu dadka mid u gar noqon karo, mid xaqa ku taagan inuu soo bixi karo. sidee baad ugu tarbiyeyn lahayd? xadiidka bukhaari iyo muslimba warinayaan, saxaabiga la yidhahdo nucmaan ibnu bashiir, ilaahay isagii aabihiiba raalliha ka ahaadee, ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa gacantay soo qabtay. aabbihii oo wada ayaa wuxuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam. dabeetana wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad markhaati ka ahaataa inankayga nucmaan ibnu bashiira hulaam baan siiyey buu leeyay, addoon aan lahaa baan siiyey inankayge, markhaati ka ahow. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey su-aal markaa, oo carruurtao dhan ma siisay buu ku yidhi, yani carruurtaadii o dhan mid walba maad siisay? markaasuu yidhi maya. nebigu wuxuu ku yidhi markaa farjichu, la noqo haddaba. riwaayaadka xadiidka qaar ka midii waxay sheegayaan falaa tashhadnii idan, inuu nebigu ku yidhi
waan aniga waxaa hayga markhaati gelinin, anigu dulmiga kama markhaati galee buu nebigu yihi. waa maxay dulmiga uu odayga kani sameeyey? odayga kani carruurtiisiibuu mid xoog u yaro jecelyi. jacaylku kolle waa masala qalbiga ah oo waa laga yaabaa inaad simi karin dadka, laakiin dhaqanka waa inaad u sintaa. waa laga yaabaa ilmahaaga in mid aadku ugu jitooya adaad u jeceshay, laakiin sida aad ula dhaqmayso iyo waxsiintooda waa inaad sintaa. ma aha waxa qalbigaaga ka guuxayo qura inaad ku xukunto. aabbaha kani wuxuu doonayey saxaabiga ahi carruurtii uu dhalay mid kamida inuu wax gaara siiyo oo uu yidhaahdo haddaan dhinto yani waxaa isagaa iskale, inta kalena waa dhaxalkaa de ku wada gelaysa. masaladani maxay? masaladan waxaa ka muuqata inuu aabbahani doonayo ficilkan markaynu sharaxno waxa weyan waa ficil dulmiga, waa ficil jawra. waayo carruurta isagaa wada dhalay, waa dhashiisii. dhashiisa waa inuu si siman ula dhaqma. ma ummaddaad si siman ula dhaqmi karaysaa haddii kuwaad dhashay adigu aanad si siman ula dhaqmi karin? sidee baan idinku cadaalad samayn karaa haddii kuwan anigu dhalay aanan u cadaalad samayn karaynin? macquul ma. cidda ugu dhow ee loo cadaalad samayn kari lahaa waxay ahayd kuwaan dhalay ee gurigeyga jooga. haddii kuwaan dhalay aan u cadaalad samayn kari waayo, ma suurtagal aha inaan idinkale idin cadaalad samayn karo. haddii la rabo markaa ilmahan in cadaalada la baro, waa in lagula dhaqmaa maxay? sifa cadaalada. waa ilaa ilmaha kani muxuu baran lahaa? wuxuu baran lahaa hadhow markuu weynaado dadka inay siman tahay in midna la dilo, midna la sii daayo, midna wax la siiyo, midna la dafiro. laba qofa xafiiska ugu wada yimi, midna inuu wax u qabto, midna inuu celiyo. waayo aabihiiba waa koode labadoodii walaalaha, midna wax siinaya, midna iska eriya. idan waxaynu leenahay ma banaana buu nebigu tilmaamaya inaad mid wax gaara siiso. haddii masalan ay tahay tacliin lagu baratansiiyo, mid abaalmar wixii lagu siinayo ama fiicnaan lagu, yani waxyaabahaas waa masalo gaara. laakiin intaad un tidhaahdo waan ka yaro jeclay hebel dadka kaleo isaga in yaroo dheeraadaan ugu daraya, intaa yaro dheeraadka waa xaaraan. carruurtaadu waa inay in wada heshaa, inay ku siman yihiin waa inay heli karaan. waxaan leenahay markaas tusaale kalena aan weliba idin siiyo, malaha dadka sar waaweyn in wax loogu qoraabay ku fiicantee. tusaalaha kale aan bixinayaa wuxuu yihi tusaale naxariista ku saabsan. nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeynku ay soo warinayaan, caaisha ilaahay raalliha ka ahaadee baa waxay leedahay nebigaa wuxuu dhunkaday xasan iyo xuseen. xasan iyo xuseen waa laba wiil oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu awow u yey, oo inantiisii faatimati zahra ay dhashay, in adeerkii cali iyo faatima ay dhaleen. xasan iyo xuseen intuu nebigu qabtay ayuu dhunkaday. markuu nebigu labadan carruuro dhunkanayo waxaa la jooga nin saxaabiyo reer baadiye ah oo la yidhahdo alaqrac ibnu xaabis itamimiy. aqrac ibnu xaabis waa nin reer baadiye ah. reer miyigu had iyo goor waa taqaanino way yaro adadegi. dabeetana wuxuu ka yaabay labadan carruur ee uu nebigu dhunkanayay. intuu sidaa u egaybu wuxuu yidhi anigu 10 wiil baan dhalay buu yidhi, weligay midna ma dhunkan. wuxuu ninkan ina la yaabayey nebigu labadan waa awowga u yahay ee uu dhunkanayo. dabeetana wuxuu leeyahy anigu 10 wiil baan dhalayo 10kaasi midna weligay ma dhunkan. nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu eegay buu wuxuu ku yidhi man laa yarxam laa yurxam buu nebigu yidhi. war kaa naxariisan looma naxariista buu nebigu yidhi. qof kaa naxariisan looma naxariisto. riwaayaadka qaarkood waxay odhanayaan inuu ku yidhi oo maxaan kuu sameeyaa haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka fayday? haddaad rabto ilmahaagu ilmo raxiima inuu noqdo, maxaa soomaali ka wada dhigay yani maanta dayday iyo dad laleeya dadkoodii uma naxaya? waxaan leenahay waa dad aan loo soo nixinayana markay yaraayeen. waayo qofku tarbiyadu qaatuun buu hadhow sii gudbiyaa. hadduu markuu yarye uu yahay qof loo naxariistay oo si fiican loo kobciyey, isna hadhow dad baahan markuu ako u ka naxaya. laakiin markuu yara haddii lasii dhangadin jiray weliba, isna wuxuu hela hadhow hadduu xabad la helo waa inuu ku dhuftaa, laa mashkila. waayo isba waa la tumayey inuu isna qaar tumaa, dhibaato weyn maaha. walidalik baa nebigu wuxuu leeyahy qofka aan naxariisan ilaahayna uma naxariisto. aan tusaale idinka siiya dhaqanka soomaaliyeed. masalan waxaa jira soomaalidu dad ay geeljiro u yaqaaniin. geeljiraha soomaalidu waxay ku sifeeyaan inuu col yahay ama inuu cadow yahay. cadownimada geeljiraha waxaa la gaadhsiiyaa
waxaaban maqlayay soomaalidu maamaahay dumarka u nisbeeyeen oo yidhaahdaan waxay yidhaahdaan geeriye geel keliyanima aad garanayn bay ku macaantoo kale. hadday jirto maamaahda iyo haddaanay jirinba waxa ay sheegaysaa mas'alada tani geel jiruhu inuu qof aan laga naxayn inuu yahay. maxay ku dhacday? geel jiraha dhaqankooda waxaa ka mid a ka ugu yar ayay rabaan inanka yar 8 jirka ama 9 jirka geela lagu daray la yidhi la socdo ayaa waxa loo dhiibaa gudinta, waxa loo dhiibaa hadhuubka, waxa loo dhiibaa maqaarka, waxay jitaan oo dhankaasay dusha ka saaraan. waa kii ugu yaraa maalin oo dhan waxaa si xambaartay geelina uu la joogaa uu daba socda. weliba waxaa laga yaabaa haddii ay carruur kaloo geel jirayaal kale is helaan inta dhanged loo dhiibo in la yidhaaho ultama oo ay ultamaan ul isla dhaca. waxaa laleeyahy ninkan aad odaygaa la baraya, labadii yaryaraa ulba isla dhacayaan. kii adigu aad wadatay haddii usha laga badiyo uu ooyo caawaad haddana dilaysaa. markaa isugu timaadaan xeregeesh ayaa mar kale la dilaya laleeyahy maxaad ragga isaga celin weyda. ilmaha caynkaa loo tarbiyeeyey markuu weynaado muxuu yeelaya marka? maxaa laga sugayaa isna? tarbiyadu qaatay waxa weeyaan inaan la isu nixin. waxay leenahay hadhow isaguna ko yare dambe lagu soo daro waa inuu wadadii un isna mariyaade. markuu isna weynaade hadhow geela keligii xargeeyo ee islaaneeyinan yar kusoo darta tirahda geelaa kula wado ka yar unbu isna intuu ka jaraya, ka yare dambe lagu soo daraa unbu isna rarayaayo dhangadeynaya tumayaade. idan waxaan leenahay qofka sida loo tarbiyeeyay ku xidhan tahay mustaqbalka ummaddu sida uu noqonayo. waxaan leenahay marka haddii la rabo in ilmo naxariis badan lasoo saaro waa inuu noqdaa guriga mid loogu naxariisanayo. markaan hadalka soo koobo waxaan leenahay ilmaha sidaynu ula dhaqmayno waa inaynu in badan ka fikernaa. waa inaynan xaqirin oo yaraysan. waxaa laga yaabaa ilmihiina marka guriga soo gashaan dadka badh siduu usha aabba ama hooyada isagagay aabbuhu markuu soo galo inuu sidii jiir yaroo la qabtay meel isku nabo unoo ismiskiiniyo. waayo waa baqa, waa colaad isaga iyo odayga waxa udhexeeya. waxaa la arkaa mararka qaarkood in loo tilmaamo mar allaaliya markay dad soo galaan isaga la xaqiro la yidhahdo ordo haddaba guriga gala dadkii waaweynaaba meesha fadhiya soo bixina. laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ula dhaqmi jiray walu fiirso hal xadiis aan idin siiyo. anas ibnu malik saxaabiga la yidhaahdo isagoo wiil yara oo 10 jira nebiga loo keeno inuu nebiga u adeego la shaqeeyo. 10 sannadoodna nebigu markaa la joogay calayhi salaatu wasalaam oo u shaqaynayay. anas ibnu malik wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqaal uu ahaa nebigu u shaqaynayay. nebigu wuu waayey markaa maalin buu u baahday. markuu u baahday buu waayey. ma odhanin nebigu qof hala doono yarkiiyo iminka lasoo qabto halay keeno ma odhan. cidna awaamir ma siinin, isagaa baxay. xagguu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam? wuxuu u baxay inuu baadi doono wiilkii shaqaale ahaa. isagoo caruur kale la cayaaraya buu u yimi. caruurtiiyo wada cayaaraysa markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam may digin caruurta. waxaa laga yaabaa innaga macalinka qur-aanka dhiga caruurta iyagoo meel ku cayaaraysa hadduu soo galo inay xabadiba meel ka dhacdo la kala dhuunto baqa laga qabo macalinkaas. waxaa laga yaabaa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaa soo raadiyey. caruurtiina may kala cararin. caruurtii intuu u yimi nebigu wuu salaama. waa caruur wax cayaaraysa ayuu nebigu salaamaya. bal hadda waxaad dareentaa u fiirsataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo isla markaana ah ummadda dhan madaxweynaheedii, ah ummadda dhami qofkii ay ka dambaysay ee ilaahay la hadlaye waxyigu ku soo degayey, oo caruur cayaaraysa intuu u imanayo iska salaamaya. caruurtaasi intay kalsooni dareemaysaa markaas? maanta haddii ra-iisul wasaare wadanku intuu soo baxo yarar meel ku cayaarayo iska salaamo yani waxay dareemayaan inay bulshada ka tirsan yihin, dad mujtamaca kamida inay yihin, dad la qiimeynaya inay yihin. waxay dareemayaan inay yihiin dad aan la yasaynin oo la xaqiraynin. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay caruurta. markuu salaamay iyana may kala yaacine salaantii bay ka radiyeen. caruurta qofba waxbuu ku fiican yaho waa kala nooc. furuuq fardiya baa jira.
isagoo ilaalinaya qofba wixii uu ku fiicnay anas buu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam, dabeetana gaar buu ula faqay. anas nebigu markaa arrin buu u sheegtay oo yidhi waxaa samee, arrin buu u sheegtay. anas markaasi wuu tegey, shaqadii loo diray buu soo qabtay. anas ibnu malik waxa uu ka habsaamay gurigoodii. hooyada saxaabiyaddii waa hooyo nool, waa hooyo og ilmaheedu wuxuu ku maqan yihi. ma aha un ilmaha inta jaadii surwaal u geliso bax inaad tidhahde waa inaad ogtay meeshuu tegiyo wuxuu qabanayo o dhan. waa hooyo garanaysay markaa ilmaheedii dhankuu jiray. sida daraaddeed waxay dareentay ilmuhu waktigii uu iman jiray inuu ka raagay. markii uu yimi bay su-aal weydiisay, ay leedahay hooyo maxaa kugu dhacay, xaggaad ku raagtay? wuxuu ugu jawaabay markay tihi hooyo maxaa ku xabisay, xaggaad ku maqnayd? wuxuu ugu jawaabay ilaahay rasuulkiisii baa ii dirtay dan uu leeyahay. bal hadda arag ilmahaasi si uu fakerayo, waa ilmo yaro carruuroo dhowr iyo 10 jira. wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisii baa wuxuu ii dirtay dan uu isagu lahaa. su-aal buu nebigu ayay saxaabiyaddu markaa weydiinaysaa ilmaheedii. waxay ku tihi wamaa xaajatu, oo waa maxay dantuu nebigu kuu diray, shaqadan uu nebigu kuu diray waa noocma? ilmaha yar bal hadda arag sida loo kobciyo kalsoonidu qabo. inahaa sirun buu yihi, hooyo arrintani waa sir buu leeyahy. waa ilmo yaroo dhowr iyo 10 jira oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaqa u dirtay, oo hooyadii waraysanayso, oo hooyadii ay leedahay waa maxay waxa laguu diray, oo markaas tiri hooyo waa sir arrintanuu nebigu ii dirtay. yacni waa qof la kobciyey. hooyo markaa maxay yeeshay? hooyo waxaad taqaanin ilmaheeda way taqaanaa. hadday xagga iyo xagga ka marto wax ku akrido waa laga yaaba inay ka soo rido, laakiin waa tarbiye itijaah qura wadaloo dhan u wada socota. waxay ku tidhi ilmihii markaa hooyo sirta nebiga cidna ha uga sheegin bay tihi. markaa mar hadday sir tahay uu adiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuu dhiibtay, cidnaba ha u sheegin ee xeji sirtaas. anas ibnu malik sirtii yaraanta loogu dhiibay, tarbiyadii fiicnayda la siiyey, guriga, madrasada iyo maamulkii dawladda oo dhan u wada socda daraaddeed, qaabkii loo tarbiyeeyey dadnimada tusinayey inuu qof mujtamaca ka mida yahay, inuu xambaari karo sirta ummaddu ay leedahay isagoo ilmo yaroo dhowr iyo 10 jira, inuu qaadi karo sirtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dhowr iyo 10 jira. tarbiyada noocaasa la siiyey kalsoonay siisay. kalsoonidaasi xadkay geysay? waxay geysay wuxuu xadiidka ka waramaya anas ibnu malik isagoo nin gaboobaya. anas waxaa la yidhahdaa waa saxaabada raggii ugu geeri dambeeyey. culamada bar baa yidhahdaba waa ninkii ugu dambeeye dhinto saxaabada. wuxuu noolaa intaasoo dawladood intay ka dumayeen, cahdigii cumar, kii abibakar, kii cali, kii cismaan, kii mucaawiya, waxaasoo dhan wuu noolaa. waaga dambe wuxuu u waramayaa ardadiisii mid kamid ah, ardadii uu xadiidka iyo diinta barayey, arday kamid oo taabiciyo saabit la yidhaahdo la hadlaya. markaasuu saabit bu wuxuu ku leeyahy wallahi law xadatu bihi axada laxadastuka bihi ya saabit. adiga horta haddaan cid un uga sheekayn lahaa arrinta tan, maanta adigana waan kuu sheegi lahaa buu leeyahy. sirtii dhowr iyo 10 jirka loogu dhiibay wuu la dhintay. maxaa inaga afka inaga falaad umalaynaysa? waxa inaga falay waxaan la barin dadka kan, qaabkan baan loo kobcin. waxaad maqashaba inaad sheegto un, waxaa la yidhi dawn inaad hayso. maha caruurta qura, waa dadka waaweyn u fiirso. waxaa la yidhi, kan baa la yidhi, waxun baa la sheegaya. waa umma yacni cimrigeediiba afka ka baxay siday u hadlaysay. waxaan leenahay marka ilmuhu wuxuu u baahan yahay markaa inuu kalsooni helo, inaan la xaqarin, in dadnimadiisa la baro, in la kobciyo, samaha in lagu barbaariyo. waa wasiiladii koowaad baan weli tusaalayaasheedii ku jira ee ahayd qudwa xasana iyo mathal aclaa inuu ilmuhu helo. taaniyan waxaan leenahay marka aynu taa barannay, ogaanay ihtimaamaadka ilmuhu uu danaynayaa inay ka horeeyaan adigu waxaad danaynayso, u baahan yahay baahidiisa in la awdo, ayaa waxaan leenahay wuxuu kaloo ilmuhu u baahan yahay guriga dabadii inuu helo bio environment, degaan wanaagsan oo ku kobco. ilmahaaga markaad doonayso inuu si fiican u tarbiyoobo, markaad aabbo fiican dooratay inuu ku guursado, ama aabbuhu markuu doortay hooyo fiican
inuu guursado ee ilma ay dhaleen mar labaad waa inay ka fakeraan meeshay degi lahaayeen. ma aha halkaasaa qaxoontigu ku lacag badan yahaan qabano. waa inaad in badan ka fakertaa ilmahaagu halka raadaynaysa noloshiisa. waa nool iyo wuxuu cuno waayi maayo haddii alla yidhaahdo, laakiin sidaad cunadiisa uga fakerayso, sida aanad u seexanaynin habeenka aad ogtahay in calooshiisu maran tahay oo u gaajoonayo, waa inaad uga fakertaa mustaqbalkiisa iyo noloshiisu say u ekaan doontaan. sida daraaddeed shayga labaad ee loo baahanya in laga fekeraa waxa weyaan degaanku ilmahaagu ku noolaan laha inaad xadido. waayo ilmuhu noocuu noqonayo weligeedba aabbaha iyo hooyadu ha fiicnaadaan, degaanku raad weyn buu ku leeyahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay xadiiska bukhaari warinayo, kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajasaani. wuxuu nabigu leeyahy qof waliba fitrada ama islaamku ku dhasha, isagoo muslim u dhasha. laakiin wuxuu nabigu inoo sheegayaa islaamnimada inay ka saarto dadka bii-adan uu la noolyahay. iskuulka maxaa loogu dhigaa? waxaa loogu dhigaa qofka caqligiisa in si gaara loo foomgareeyo, si uu si gaara ugu fekero, qiyam gaara uu qaato, si gaara uu wax u arko. idan bii-adaad la nooshay iyo qaab nololeedkeedu wuxuu wax ka bedelayaa qofka ku dhex kora. taa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay qofkan labadiisa aabbo waa bii-ada inta ugu yar. bii-adii weyneydna markaa way ka mid yihin, yani environmentkii weynaana waa ka mid, ayaa ama yuhuudi ka dhiga ama kristan ka dhiga ama majuusi ka dhiga. wuxuu xadiiska saxiixeynka ku yaala nebigu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam, isagoo inoo sheegaya qofku meesha uu ka shirayo, cidda uu la fadhiisanayo, cidda uu la saaxiibayo. ilmahaaga waa inaad ogta cidduu raaco, halkuu fadhiisto, cidda uu arko, cidda uu la dhaqma. waayo nafsiyadiisa iyo psychologically sida uu u beermayo, uu u abuurmayo, waxa samaynaya waxa kan adigoo aan adigu dareensanayn. sidaa daraaddeed bu wuxuu nebigu leeyahy, mathalu ljaliisi saalix waljaliisi suu kamathali xaamili lmiski wanafiki kiir. ninka fadhiga fiican ee majliska fiican lala fadhiisto iyo meesha xun ee la fadhiistaa waxay la kala mid yihiin buu nebigu leeyahy. maxay la kala mid yihiin? waxay la kala mid yihiin nin la fadhiistay xaamil ilmisk. miskigu waa geed udgoon oo la carabsado a wada taqaaniin. nin la fadhiistay nin miski iibinaya. qof miski iibinaya haddaad la fadhiisato maxaa dhacaya? inaad ka iibsato oo de shay fiican aad iibsatay. inta aad la fadhido in makaanka carab fiican aad ka heshiiyo udug wanaagsan oo waa dee meel wax udgoon lagu iibinayo, iyo inuu de kuba siiyo. saddexda mid un weeyaan, inaad iibsato, inuu ku siiyo, iyo inuu majliska kuu fiicnaysiiyo. idan wuxuu nebigu tilmaamayaa marnaba inaad ku khasaarin markay nolosha caynkaas. saaxiibka fiican ama majliska fiican la fadhiista waa noocaa buu nebigu leeyahy. ka xumi isagu waa sidee marka? wuxuu la mid yahay buu leeyahay nebigu naafiku kiir. naafiku kiirku waa farsamo yaqaankan buufimooyinka dabka ku shita. haddaad la fadhiisato farsamo yaqaan buufimo dab ku shidaya, maxaa kugu dhacaya? dabkuu shidaya inuu marada kaa gubo oo dee dhimbiilu kugu dulduulaan, iyo dambas iyo bood iyo qiiq inuu kaa dhargiyo, de miduma kugu dhacay, waxba kama faaidaysa. maaha meel la fadhiisto meeshu de. sidoo kale waxaa lamida buu nebigu leeyahy bii-ada xun iyo bii-ada wanaagsan. haddaad environment iyo degaan wanaagsan qofku uu joogo, waxan buu la kobcaya. hadduu environment iyo degaan xun qofku uu degan yahayna waxa uu la kobcaya maxay? waxan xun buu la kobcaya. waxaa kaloo lamida saaxiibku ilmahaabu raacayo inaad ogaato. madrasada cidduu usii raaco, cidduu ka soo raaco, madrasada cidduu dhinac fadhiisto, iyo iskuulku ku jiraa noocii. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xadiiska tirmidi uu ka warinayo insaxa, almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil. qof waxa uu ku sugan yahay diinta saaxiibkiisa ee midkiin ha eega buu nebigu leeyahy cidduu la saaxiibayo. inanta wanaagsani hadday inan xun la saaxiibto, laba midun baa dhacaysa.
tan xun in la wanaajiyo ay wada wanaagsanaadaan ama tan in la xumeeyo, laakiin ma suurtagalaha weligood inay saaxiib ahaadaan, midna ay weligeed xun tahay midna wanaagsantahy. ninka khamriga cabiyo nimaan khamri cabin hadday israacaan laba mid unba dhacaysa, in wax taatiiriyo kanaan khamriga cabini oo markaa kanina khamriga iska daayo, ama in kan la kaxeeyo diskooga la geeyo isna khamriga cabade, labada mid unba dhacaysa. waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu leeyahy yawma yacudu aalimu calaa yaday yaqulu ya laytani itakadtu maca arasuuli sabiila ya waylata laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can dikri bacda id jaani wakana shayطaanu lilinsaani khaduula. qiyaamaha ilaahay inoo tilmaamaya qaar calaacalaya. muxuu ku calaacalaya? yaa laytanii shallaatadayde ama se qoomamadayde itakadtu maca arasuuli sabiila, balmaan jidkii nebi maxamed qaada buu ku calaacalaya. yaa waylata laytanii lam atakid fulana khaliila, yaa waylata hoogaygow kaalay. laytanii muxuu ku tiiraanyoonaya qofkani? laytanii lam atakid fulana khaliila, bal maanan hebel ka dhiganin buu leeya saaxiib, saaxiibnimadii hebel bay halaagtay. laqad adalanii can dikri bacda id jaani wakana shayطaanu lilinsaani khaduula. waxaan leenahay marka waxaa loo baahan yahay haddaad rabtaan ilmihiinu ilmo saalixo ku anfaca inuu noqdo, waladun saalixun yadcuu lahu inuu kuu noqdo, aakhire markaad dhimatay camalkaagu uu go-o mid camalkiisu uu kuu socdo uu kuu noqdo, waa inaad in badan ka fekertaa ilmahan iyo sidaad u tarbiyayn lahayd. waa inaad in badan ka fekertaa bii'adii uu ku noolaan lahaa. intaa kadib waxaan leeyahay waxaa habboon intaa kadib inaynu isticmaalno, inaynu ilmaha markaa wax u sheegno, suluugiisa iyo dhaqankiisa inaynu wax u sheegno, wax ka bedelno, tarbiyadiisa akhlaaqiga inaynu u sheegno. walidalik ayaa shaykhayn bukhaari iyo muslim waxay warinayaan xadiidka camar ibn abi salama. saxaabigaasa wuxuu leeyay wiil yar baan ahaa, wiil yar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ku nool, yani umu salama baa dhashay, hooyadii buu nebigu qabay calayhi salaatu wasalam, yani guriga nebiga buu noolaa. wiil yar oo guriga nebiga jooga baan ahaa. marka xeedha cunaa baa lasoo dhigay, gacantaydu buu yidhi xeedhada way duulduuli, kolba meel baan ka qaadanaya, waa ilmo yaroo caruura. nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa ghulaam sami illaah wakul biyamiinik wakul mima yaliik, waar wiilow bisinka u qabo oo midigta ku cun oo xagga ku xigta wax ka cun. ilmaha markaasuu ku fiican yahin tarbiyadii akhlaaqiga ahayd la baro. waxaan leenahay markaas buu wuxuu ku fiican yahay in talqiin iyo tacwiid lagu sameeyo, in wax loo laqimo, wax loo sheego, wax la baro oo loo waramo. weliba in laysku dayo waxaan la barayo in aanad odhan waanagii shalay u sheegay muxuu u ilaabaye, aada isku dayda inaad ku celceliso ilaa iyo intuu kala qabsanayo. laakiin dhibaataa jirta, mid ogaada. dhibaatadu waa maxay? aabbaha iyo hooyadu waa inay isku manhaj ka yihin, isku aragti waa inay ka yihin ilmahooda siday u kobcin lahaayeen. dhibaatada innagayna haysataa waxay tahay aabbaha iyo hooyadu maba wada tashadaan. dhaqan xumada soomaalidana waxaa ka mid a nin iyo gabadhii maxay yidhaahdeen col iyo nabadtoona maaha, ma meel aan col iyo nabadtoona lagu hayn ba wax lagu korin karaya. dabeet waxay ahayd asalka in aabbaha iyo hooyadu ay yihiin kuwo ka wada tashaday mustaqbalka ilmahooda wuxuu noqonayo. tusaalaha ugu fudud baan idin siinaya. masalan aabba markuu joogo hadduu yidhaahdo wiilka gacanta midig wax ku cun oo xagga ku xigta ka cun, oo markuu maqan yahay hooyo intay raashinka soo qaada ay u dhigto oo uu bidixda ku cuno oo aanay iyadu ka celin, muxuu dareemayaa ilmuhu? wuxuu dareemaya in odaygu axmaq yahay. waayo shaygu hadduu xun yahay hooyo hadday joojin lahayd yaha, maadaama hooyo horteed ku samaynayo aanay ka joojinaynin, wuxuu dareemaya in aabba una cadaadinayo. waxaa lamida masalan xuma hadduu samaynayo hooyo istidhaahda ka celi, oo aabbuu yidhaahdo inanka naftaas uu keentay iska dah, ha iska wato wixiise. wuxuu dareemaya waxan inaanay xumayn ee hooyo inay ku yara adadagtay. idan waxaan leenahay aabbaha iyo hooyadu qaabka ay wax u tarbiyeynayaan intaanay wax dhalin waa inay ka tashadaan, waa inay ka heshiiyaan, waa inay isku aragti ku yihiin. waxa uu aabba u diiday intuu guriga joogo hooyana waa inay diidaan.
waxay hooyo diida aabana waynu diida waynu yahay aabahan iyo hooyadani kuwa dhan qura wax ka wada arkaya si ilmaha kani uu si saxa ugu kobco. haddii kale ilmihii wuxuu noqonayaa muhalhal mudabdab, qof marna wixii moodayo sax marna moodayo inuu qaldan yahay. sidaa daraaddeed ba waxaan leenahay aabbaha iyo hooyadu in badan waa inay wada tashadaan, in badan waa inay wada hadlaan, in badan mustaqbalka dadkan ay dhalayaan waa inay ka fikeraan. ma aha inay u wada noolaadaan o inay wax dhalaan. waxaan la dhalaya haddaan wax anfacaya noqonaynin dhibaatadiisuu leeyahy. sidaa daraaddeed waxaan idinku celinayaa la ilmaha wax ha lagu celceliyo, ha la dareemo maanta inuu qaldami karo, biri qaldami karo, saa damba qaldami karo. laakiin haddii talqiin lagu sameeyo tacwiid oo waxa kan in dooro la isticmaalo, waxaa la arkaa maskaxdiisa inay degi karto, ilmaha kanina uu kobci karo. waxa aad dhaqan ahaan u barato marka dambe adigoo aan xataa conscious ka ahayn baad iska samaynaysa. masalan tusaale fudud baan idin siinaya. wadanada reer galbeed waxaa jirta qofka waxaa la baraa xashiishka inuu meel gaaro un ku rido, kudaafada wuu qaadaya, suuqa adigoo marayaad warqad afka iska marinaysaa ama ku duugsanaysa. warqadii lagama yaabo inaad suuqa ku tuurto, maanta dhamaad gacanta ku sidaysa ilaa aad la hesho meel aad ku riday. waxa laga yaaba inaad ogeyn intanaad siday oo dhan. sababtu waa maxay? waxa weyaan qofkan waxaa lagu tarbiyeeyey inuu meel gaaro waxa kan ku rido. laakiin inaga tarbiyadda laynaga xumeeyey. haweeneyda soomaaliyeedta gurigeeda fiiqdo ayay wadada ku qubaysaa. haddana maxaad kordhisay? gurigaagaad kudaafadii ka keentay, wadadaad ku guraysa haddana. laakiin haddii waxaan laynagu kobcin laha, laynagu tarbiyeyn lahaa in badan, waxay noqon lahayd waxaynu adhabkarayno marka dambe xataa aynan ka fakerin. sida daraaddeed waxaan leenahay ilmaha markaas waa inaad ku daydaa waxaan inaad jeclaysiiso, inaad ku celceliso inuu waxa kan ku kobco ilaa xad. waxaan dareemaya waxaan ku celcelintooda iyo qofka jeclaysiintooda in waalidkii hore in badan kaga fiican yahay dadka dambe, soomaalida dambe. waayo waxaan ogahay hooyooyinkii hore masalan ilmuhu markuu shay fiican sameeyo si ay ugu dhiifiyaan way u mahadnaqi jireen. hooyada marka inankeedu wax u soo qabto waxay ku odhan jirtay hooyo weynow, wiil iyo caano noqo. ereyada tan muxuu dareemayaa? ilmuhu wuxuu dareemayaa camalkuu qabtay in looga mahadnaqayo. wuxuu noqonayaa ilmo dhiiran oo waxa kan sii qabta. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man lam yashkur innaasa lam yashkur illah. waa xadiis nabawiya. cidda aan dadka u mahadnaqini buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, allana uma mahadnaqdo. haddaad rabto ilmahaagu wanaagga markuu sameeyo inuu kusii sugmo, waa inaad ku dayda inaad uga mahadnaqdo. markuu wax wanaagsan kuu sameeyo inaad uga mahadnaqdo, si ilmaha kani waxa kani muntabic ay ugu noqdaan, maskaxdiisa ay ku qormaan. wasaailka ugu fiican ee loo adeegsado waxa kana waxaa kamid a alwasaa'il alcaatifiya. oo ah qofka bini aadamka ah nafsiyan masalan waxbuu jeclaada, waxna wuu necbaada. waa laba dareen oo ku abuuran qof kastoo bini aadam ah, inuu waxna jeclaado waxna naco. laakiin labadaa dareen ee ku abuuran ee inuu wax jeclaadiyo waxna naci waxay u baahan yihin in la tawjiihiyo, in la saxo, si uu waxa fiicanna u jeclaado, waxa xunna uu noqdo maxay wixii uu nacayay. qur-aanka waa aragteenoo in badan wuxuu inagu boorinaya masalan dadka jilicsan inaynu u naxariisano, masaakiinta inaynu caawino, dadka dembiga inagu sameeya inaynu cafino, inaynu sabr badan la yeelano. waxaa kaloo qur-aanku cawaatifteena uu isticmaalaya jaanibka xun, waxa layna nacsiinayo, nacbeeshiya inugu abuuran, waxaynu naci lahaynoo xumaa ah, bukliga, xaasidnimada, xanta, inkaara, waxaasoo dhan inaynu nacno. ilmahaagii waa inaad isku daydaa samahana markaa inaad jeclaysiisid, xumahana inaad necbaysiisid. wasiilo loo adeegsado cawaatiftaana waxa ugu roon bay yidhaahdaan qisaska inaad adeegsatid, sheekooyinka. waxaan xasuustaa hooyooyinkii hore waxay ahaan jireen hooyooyin feejig, dhanan badan marka laga eego. aqoon darra waa jirta, laakiin waxyaaba badan ay ka feejigaayeen baa jiray. waxay isku dayi jireen ilmahooda inay u sheekeeyaan. masalan waa taqaanin dhaqanka soomaaliyeed, geela waxaa la maali jiray habeenkii maxay xidig macruufi marka uu dhaco. intaasoo dhan waa la sugayey geela. caruurtii maanta dhan rooraysay way luloonaysaa, way ka seexanaysa. waxaa la rabay in la sugsiiyo caanaha loo soo lisi doono. maxaa lagu sigsiin jiray? hooyada ama ayeeyada ama islaanta reerka joogta ayaa carruurta u sheekayn jirtay.
sheekooyin markaa dariifa. caruurtu kama kacdo sheekooyinka marka habeenkii fiidka marka xoolaa lasoo xareeya soo wada ururaan oo ayeeyadooda ama hooyadooda ag fadhiistaan iyagoo ka sugaya qisaskan inay u sheegto. qisaskan ay hooyadoo akrinaysaa intibaac buu ku sameeya ama ilmaha maskaxdiisa ku qornaa wax badan. inaga qisaskeena waxay isaga badnaayeen in ilmaha la jeclaysiyo inuu geesi noqdo. marka inta badan hooyada ama ayeeyadu waxay ka warrami jirtay beri libaaxeeriyaday ama waraabo ay wax ka dhacsadeen ama meel oona ay mareen oo ay yani maadaama nolosha baadiyo ay ahayd nolol adag. laakiin waxay leenahay qisas badan baa la adeegsan karaa oo hadday tay saxaabadii oo looga warramo, hadday tay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laga warramo, hadday tay dadka wanaagsan oo looga warramo. bulshadu dad wanaagsan oo badan bay leedahay. dadka wanaagsan ee bulshada ee loo baahaya inuu ilmuhu ku daydo oo looga sheekeeyo o looga warramo si uu qofku u noqon karo qof waxa kane ay maskaxdiisa ku guntamaan. walidalik waxaan xasuustaa qisaskii caruurnimada loogu heesi jiray anoo weyn baan akrinayo oo yurub jooga. caruurta waxyaabahay masalan soomaalidu maqasha ugu heesi jirtay. waxaan ka dareemay qisadaasi oo kale ilmahan soomaaliyeed in la doonayay in la dareensiiyo taariikh horo saxaabadu lahayd, laakiin la rabay in looga dhigo hees yar oo uu maqasha ku raaco. maxaa af soomaaliga la ydhaha maqalay warlay ma lagu warramay in cali la dilay oo cumar la dilay. yani maxaa la rabaa in ilmahan la baro khulafaa raashidiinkii la laayay, cumar iyo cali iyo kuwan in la laayay. laakiin waxaa looga dhigay hees yar oo xoolihiisa ku raacan karo iska fudud oo maskaxdiisa geli karta. idan waxaynu leenahay waxa u roon qaab wax looga daadejiyo ilmahaaga inaad inta badan u sheekayso oo aada uga sheekaysid sheekooyin noocaasiya oo creative ah, sheekooyin qofka wax ku kordhin kara. walidalik ba ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy laqad kana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab faqsusi lqasasa lacalahum yatafakkaruun wakula naqusu calayka min anbaai rusuli ma nusabitu bihi fuaada. aayaadkan ilahay wuxuu leeyahy dadka waxaad uga warantaa qisaskii umamkii hore. maxaa loogaga waramaya lacalahum yatafakkaruun baa ilahay leeyahy si ay u fakeraan. ilahay wuxuu leeyahy wakula naqusu calayka min anbaai rusul maxaa loogaga waramaya ma nusabitu bihi fuaada. waxaan leenahay marka malaha in badanna waan hadlayay mawduucana waxaa laga yaaba in qayb iska hadsanta caruurna la haysto. haddii ay idinku garataan waan wadi karaa. haddaad garataan inaad bal horta biriris yaro qaadataan oo nasataan, waayo waxaan oogay qofka bini aadamkii kursi inaanu intaasoo saacadooda fadhii karin. waxaan jeclaan lahaa in biriris la qaato oo kadib mawduuca aan bilaabo. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خواتي في الله waxaa inoo bilaabi doona waxaa maarta halkan ka qaadi doona bilaabi doona muxaadaradii walaalkeen. marka hala yareeyo maarata hadalkaas hadalka hala yareeyo si lasu maqlo insha allah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan isku dayi doonaa inaan muxaadarada halkeedii kasii wado. ilmaha caruurta wuxuu u baahan yahay si loo tarbiyeeyo inuu helo biyo fiican oo uu ku daydo. akhawaati fillah ma ismaqlayna? tarbiye fiican u helo, qudwada ciddii uu ka heli lahaa uu ku dayan lahaa, almatal ilaclaa ama tusaalihii sare. waxaynu kaloo joognay inuu u baahan yahay bii'a ayiba ama environment fiican. waxaynu kaloo nidhi wuxuu u baahan yahay inuu manhajku midaysay aabbaha iyo hooyadu ay isticmaalayaan
waxaynu kaloo sheegnay inuu ilmahaasi u baahan yahay inaynu in badan wasaa'ilka caatifiga adeegsano, kuwaasi oo noqon karaa waxna in la jeclaysiiyo waxna in la necbaysiiyo. qisaska qur-aanka uu tilmaamaya ama ambiyadii ama saalixiintii iyo wixii lamida in badan looga waramo, waayo qur-aanku qisas badan buu inoo sheegaya oo mid waliba ay sideeda tusaale gaaro. masalan nabiyullaahi yuusuf baa ilaahay ka warramaya subxaana watacaala, oo ah shaab ama nin dhalinyaro ah oo dhowrsooni muujiyey, nin dhalinyaro ah oo cahdigii dhalinyaronimo jooga oo dhowrsooni aada u cafiifnimo ah muujiyey. masalan qur-aanku wuxuu inooga warramaya fircawn iyo saxaradiisii oo xaqa in la raaca inay mudantay muujiyey. qisaskanoo looga warramo carruurta waxay leenahay intilaac badan buu ku keenaya ama maskaxdooda si badan buu ugu degaya. waxaan jeclay inaan mawduuca hore uga sii socdo. waxaan u gudbaya wasaaisha la adeegsan karo waxaa kaloo kamid ah atargiib watarhiib. ilmaha in wax la jeclaysiiyo oo laga abaal mariyo wanaag markuu sameeyo, la ciqaabo ama laga joojiyo xumaha. waxaa taa kamida ugu horeyn in hadal lagu isticmaalo oo ah almawcida. qur-aanku wuxuu inooga warramayaa ambiyo badan oo caruurteedii u dardaarmaysa, waaninayso la hadlaysa. waxa uu qur-aanku tilmaamaya masalan luqmaan, waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim. waxa uu qur-aanku sheegayaa luqmaan oo leh ya bunaya inaha in takun midqaala xabatin min khardal fatakun fi sakrati aw fi samaawaati aw fi lardi yati biha allahu ina allaha latiifun khabiir. ya bunaya aqim الصalaata wamur bilmacruufi wanha can lmunkari wاصbir cala ma asaabak ina dalika min cazmi اlumuur wla tusacir khadaka linnaasi wla tamshi fi lardi maraxa ina allaha la yuxibu kula mukhtaalin fakuur waqsud fi mashyik waqbud min sawtik ina ankara alaswaati lasawt lxamiir. yani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya nebi luqmaan saalix aw luqmaan alxakiim oo wiilkiisii markaa waaninayo leh, wiilkaygii o ilaahay aan ka gaaloodi, shirki ha samayn. waaninayo le wax kastoo camal xun iyo camal wanaagsan waxaad samaysataba maalin lagugu xisaabayaa jira. waaninaya oo leh wiilkaygiiow aqim isalaata waamur bilmacruuf, salaada oog, samahana dadka far, xumahana ka reeb. waaninaya oo leh dadka dhibaatooyinkooda ku sabir. waaninaya oo ku leh ha iska weynaynin dadka, dhulkana adigoo kibirsan ha dul soconi, ilaahay kuwa kibirka badan ee faanka badan lama jecleen. waaninayo kule markaad dadka la hadlayso si dhimirsan oo cod latiifa le kula hadal, cod la maqlo ka dameerka u xune. waxaynu arkaynaa nabiyullaahi nuux oo wiilkiisii waaninayo leh yaa bunaya arkab macana walaa takun maca alkaafiriin. waxaynu arkaynaa yaa bunaya laa taqsus ru'yaak, yacquub oo wiilkiisii yuusufa ku leh ya bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiidu laka kayda ina shayطaana lilinsaani caduwa mubiin. waxaynu arkaynaa yacquub oo caruurtiisi ku leh ya baniya ina allaha اصطafaa lakum اdiina falaa tamuutuna ila waantum muslimuun. nusuustaasi waxay sheegaysaa dhammaantood, waxaad moodaa inay sanqadhu badan tahay. waxaan leenahay marka asaaliibta loo baahan yahay in loo raaco waxaa kamid ah ilmuhu markuu wax fiican sameeyo in kelmad wanaagsan lagu yidhaahdo, markuu wax fiican sameeyo in hadiyad la siin karo, in eray dhiiri gelin kara lagu odhan karo. waxun markuu sameeyana in looga digo. laakiin masalada cuquubada la yidhaahdo waxaad moodaa si xun in badan inaynu u adeegsan. waxaan jeclay masaladaasi inaan iyada si gaara wax uga tilmaamo. ilmaha qur-aanku wuxuu ina faraya inaynu si wanaagsan ula dhaqanno. inta badan ilmaha fitnada ku dhacda
ama reer galbeedkan carruurtooda ay isdisho ama mujrimiinta noqdaan, inta badan mushkiladda waxay kaga timaadaa guriga sida looga dhaqmo. sida daraaddeed ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy ina allaha yaamurukum bilcadli waalixsaan. ilahay wuxuu idin farayaa cadaalad iyo samafal. ixsaanku waa adigoo waxaad xaq u lahayd ka tanaasula. yaa mudan inaad ixsaan iyo cadaalad u samayso. waxa ugu mudnaanshiyo badan kaad dhashay gurigaaga jooga. haddaad cid un cadaalad u samayn lahayd, cid un ixsaan u samayn lahayd, waxa mudanka guriga jooga. ilahay wuxuu leeya waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas. kuwa cadhadooda qarsanaya ee dadka iska cafinaya. yaa mudan in la cafiyo, yaa mudan inaad cadhadaada ka qariso qofka gurigaaga jooga. ilahay wuxuu leeya waquluu linnaasi xusna. dadka wanaag u dhaha. yaa mudan oo ugu horeeya dadka cid aad wanaag ku tidhaahdo kuwaad dhashay. ilahay wuxuu leeya walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik. xaqa sheegistiisu iyo qofka dhaqankiisu waa laba shay oo isgargaarsada. adigoo qofka raba inaad xaq u sheegto, haddaad qofka kan oo dabci xun noqoto, xaqaaguma noqonayo mid la qaato. ilahay markaas buu leeya walow kunta fadan haliida alqalb. haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeya mid dabeecad xun oo qalbi engegan, dadkuba way kaa yaaci lahaayeen. haddii nebi maxamed laga yaaci lahaa dadka kale maxaad umalaynaysa calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay cuquubadu waa inaanay noqonin waxaynu ku degdegno. waa inaanay noqonin waxaynu ku degdegno. cuquubada ilmaha aynu ka ilaalinayno kow waxa ugu horeeyo aan tilmaamaya, xataa aabbaha iyo hooyadu sidaa ay u dhaqmaan cuquubu ku noqon karaa ilmaha. waxaan taa uga jeedaa, masalan waxay culimadu leeyihin gabadhu inta ay uurka leeday, haddii la maago ama la dagaalo ama laga cadhaysiiyo ama ay shaqo adag qabato, shaqadu ku badato, intuba waxay raad ku leedahay ilmaha caloosheeda ku jira. adigoon adigu islahayn raad bay ku leedahay, bay raad ku leedahay. mar kastoo aada cadhooto oo physiological iyo psychological wax isaga kaa bedelaanba, ilmaha calooshaada ku jirana raad bu ku leeyahy. idan islaamku wuxuu door bidayaa masalan gabadhu inay guriga joogto, khaasatan xaalaadkan markay ku sugantah, inaan la daalin oo irhaaq badan aanay dareemin, inaanay cunno iyo raashin ka warwarin, inaanay maskan iyo meel ay degaysa ka warwarin. sababto waxay tahay haddii ay waxa kan ka fakerto ka warwarto, isla markaana ay isku daydo inay wax produce garayso, waxay produce garaynaysaa waxba u dhimaya, ma noqonayo ilmo caadiya. walidalik ayaa masalan doctorka la ydhaha carbante oo camiid akademiyat alculuum fi belgium akademiyat alculuum ninka haysta ah, ayaa wuxuu leeyahay xaala almar'a aljismiya walnafsiya walcasabiya. xaalada gabadha buu leeyahy ee jidheed, ee caafimaad ahaaneed, ee dareen ahaaneed, ee nerviology ahaaneed, waxa ay raad ku leedahay buu leeyahay caloosheeda ilmaha ku jira. waa masale biologically la buruufgareeye o reer galbeed buruufgareeyeen. sida daraaddeed baa alexis carol ninkii la odhan jiray nobel prize-ka qaatay, dhakhtarka caanka caalamka ka ahaan jiray, baa wuxuu leeyahay isna sida ay u jirta buu leeyahay qawaacid cilmiya oo ku saabsan sida gaadhiga loo sameeyo ama se loo ilaaliyo. sida ay u jirta buu leeyahay qawaacid cilmiya oo ku saabsan xoolaha sida loo kobciyo loo barbaariyo, ayaa waxa u jira buu leeyahay qawaacid lixamli اlaطfaali wa takwiinihim, ku saabsan ilmaha caloosha ku jira sida loo xambaarayo ama loo sidayo iyo siduu u samaysmayo. waxa habboon buu leeyahay haweenka inta aan cilmi kale lagula degdegin, waa nin reer galbeeda ninka saan u hadlaya, in la baro iskuullo u gaaro lagu baro ilmaha calooshooda ku jira siduu u kobci lahaa. waxaan leenahay marka ciqaab la ciqaabo ilmaha waxa ugu horeeya hooyadu waxay ciqaab dareento oo dhan inta ay uurkiisa leedahay, waxaasoo dhami waa ciqaab isagana ku dhacay. aniyan markuu iska yimaado ee uu dunida usoo baxo, waxa haboon baynu leenahay ilmaha in si wanaagsan loola dhaqmo. cumar bin alkhaaab ayaa culamada taarikh waxay sheegeen nin baa u yimid, ilmihiisii baa dilay, markaa wuxuu ka cabanaya waa waalid le ilmahaygiiba ay dilay.
cumar wuu ka argagaxay markaa ilmihii baa loo yeedhay warkaalay baa layidhi maxaa dhaca la weydiiyey wuxuu ihi cumar waxaan ku weydiiyo ilmuhu aabbaha horta wax xuquuqa ma ku leeyahayba waalidkuma iyagunba xuquuqda leh mise ilmuhuna xuquuq bay leeyihi cumar baa wuxuu ku yidhi maya ilmuhuna xuquuq bay leeyihi waan ku yidhi waa maxaa xaqaan aabbahay ku leeyahay cumar baa wuxuu yidhi xaqa aad aabbaha ku leeday waxa weeyaan hooyadaa markuu guursanayo inuu hooyo fiican guursado iyo inuu magac fiican kuu bixiyo markaad dhalatay iyo inuu si wanaagsan wax kuu baro intaas baad ku leedahay buu yidhi xuquuqa wiilkiiyoo doodaya markaa wuxuu leeyahay aabbahay xuquuqdaydii ima marin wuu soo cawday markaa cabitaankiisa waxaa kamid ahaa cilmiba ima barin ama kitaabba ima barin buu yidhi waxa wy baraysaa beerta loo falo ama dibidan beerta lagu qobayo saa loo kaxeeyo magacaygana jucal buu ii bixiyey buu yidhi juculku waa khufusaaga waa bahalkan soomaalidu maxay tiraa xaar walwaad magacaygana waxaasuu ka dhigay buu leeyay cumar baa odaygii intuu ku jeestay buu wuxuu yidhi adigaa ilmahan cuquuq ku sameeyey inta aanu caaq kugu samaynin yani adaa si xun u tarbiyeyey buu leeyay tarbiye xumadaadii baa keentay buu leey inuu isha kugu garaaco ee hadday adiga tarbiyadaadu wanaagsan tahay ilmahaagu ul kuguma sameyn buu leeyay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay waalbaladu ayibu yakruju nabatuhu biidni rabbi wladii kabusa laa yakruju ilaa nakida dhulka fiicani baa ilaahay yii wuxuu barodhiisgareeyaa soo saaraa geedho fiican ilahay idankiisa dhulka xunna waxba kama baxaan baa uu nebigu leeyaha ayuu qur-aanku tilmaamaya waxaan leenahay marka masaladan u fiirsada intaanan cuquubada gaadhin ilmahana la dili karaa mise lama dili kara intaanan gaadhin maalan inagu waxaynu ka fakarnaa ilmuhu inaanu dhaqdhaqaaqin dabeetana waxaynu jecelnay inaanu guriga rabshino cayaarino fadhiiso waar markaad soo gashaba waxaad leedahay fadhiiso halka fadhi laakiin waxaan kuu sheegaya waxaan macquul ahayn inaad ilmaha farayso waa maxay waxaanaan macquulka ahayn ilmuhu 2 jir ilaa 7 jir da'diisu intay udhaxayso cunada agtiisa waxaa kaga muhiimsan cayaarta waxay idhahdaan biologically cilmiyan qofka weyni wuxuu leeyahay energy storage ama energygiisa cunada dheeraadka uu cuno wuu stoor garayn karaa oo waad aragtay qofka weyni xoog buu u naaxaa waa energy storage badanoo qofka weyni uu leeyahay wuu kaydin karaa tamartii uu qaatay ilmuhu male bay yidhaahdaan energy storage intaa leeg ama tamar kaydin intaa leeg male sida daraaddeed marka uu wax cuno cunada inta ugu badan waa inuu iska saaraa haddana muxuu ku saaraya energygiisa waa inuu isticmaala waa inuu boodbooda cayaara ka riixa kan gujiya halka ka booda waxa kan cunadaad siinaysaa sababaysa waxa kan maaha wax firfircooni dheeraada uu leeyahay maaha dabeecad xumo haysata maaha qalqaalinimo haysata maaha waxa weeyaan waa wuxuu cunay baanu kaydin karin dabeetana wuu isticmaalaya wuu bixinaya walidalik ayaa nabiyullaahi yacquub ilmihiisii u aada u jeclaa waxaa lagaga qaaday maxay inuu cayaarta u ogolaado qaaluu ya abana ma laka laa taamana calaa yuusufa wainaa lahu lanaasixuun waxay ku yidhahdeen aabba maxaad yuusuf noogu aamin weyd annagu waxaanu nay kuwa u nasteexaynaye maxay ku leeyihin arsilhu macana gadan yartac wayalcab annagana raaci bay idhaahdeen berito hanala soo boodboodo hanala cayaaro hanala cune wainaa lahu laxaafiduun markaas buu aqbalay nebi yacquub ilmuhu jeclaa wuxuu ku bixiyey wuxuu ahaa ha soo cayaaro waa aragteenoo iskuullada waxaan xasuustaa iskuulladii waagii hore soomaaliya intaana soomaaliga la bilaabin waxaa jiri jiray elementary schoolka ama dugsiga hoose 5 minid marka ardada xiisada dhamaataba 5 minid baa la fasixi jiray 5 minid bay dabadda soo yaaci jireen oo way soo noqon jireen dabeetana way fadhiisan jireen xiisada ardayga elementarygu qaata waxaa laga yaabaa inay 30 daqiiqo ahayd markuu intermedianka galo waxaa laga yaabaa inay 5 iyo 40 daqiiqo meelaha tagto secondaryga markuu gaadho waxaa laga yaabaa inay saacad noqoto jaamacadda markuu gaadho waxaa laga yaabaa lecture 2 saacadood inuu dhegaysto waayo waxay leeyihin qofka marka da'diisu korodhaba energygiisa tamartiisuu kaydin karaa in ka badan buu fadhihi karaa
haddii inta aad adigu fadhida in leeg aad ka rabto inuu ilmuhu dhinacaaga fadhiyo aanu dhaqdhaqaaqe waa macquul maaha. adigu waad fadhihi kartaa laakin isagu ma fadhihi karo. isagu inuu boodboodaa kan riixa kan gujiya dabeetana soo noqdaa markaa haddana cabaar fadhiya. markuu cabaar fadhiyaba waa inu shaqada tan bilaaba, waayo enerjiga kan ma kaydin karo. idan waxaa gardaraa marka hore in cayaarta loo diido. waxay dhahdaan culamaai tarbiya tajaaribta la sameeye waxaa kamid a ilmaha dagaadayga kaga cabanaysa bay yidhahdeen u yeedh bay yidhahdeen horta isagoo soo jeeda, mar qura u yeedh bay yidhahdaan. waxba hebelow maanta o dhan haynin, mar qura si fiican ugu yeedh. waxa aad faraysana isagoo soo jeedo far bay yidhahdaan. isagoo sii jeeda waxaa qaba haddaad tidhahdo kuma ma jeedo, laakiin ha soo jeedo isagoo adiga ku eegaya waxa aad doonayso far. qasab ilmahaas uu fulinaya waxaad rabtay, laakiin isagoo iska soo jeedo cayaartiisa wata haddaad awaamirtiisa awaamirtaada soo biiculnaash waa inuu qof soo jeedo wax fahmi karayo iyo markaad wax u sheegayso. waxaan leenahay wuxuu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati. dhammaantiin mas-uuliin baatiin, qof walibana cidda la raaciyay buu mas-uul ka yihi. waxaynu u baahanay markaa masaa'il badan inaynu u fiirsano, wax badan inaynu ka qancino ilmaha. walidalik ba culamadii muslimiinta hore maala imaam alghazali fi kitaabi ixyaai culuum addiin ayaa wuxuu ku leeyahay waxa haboon ilmaha in loo ogolaado buu yihi marka uu malcaamada ama iskuulka ka yimaado cayaar fudud inuu cayaaro si uu qalbigiisa u raaxaysan karo oo uga raaxaysan karo tacabkii iskuulka ama malcaamada ka soo raacay. waa caalim hore waa hore noola, qarnigii 5aad buu noolaa. markaasu wuxuu leeyahay haddii ilmaha loo diido cayaarta oo tacliimtoo qura lagu daaliyo xataa intelligencekiisu inuu lumaa looga cabsi qabaa buu leeyahy. waa culamaa muslimiin alqudama. intelligence ilmuhu inuu ka lumaa laga yaabaa buu leeyahy. ilmuhuna inuu nolosha tan karaahiyeysto torturka ah un inuu waxbarto oo ku jiro. sida daraaddeed waxaan leenahay cayaartu waa wasiila kamida wasaairta tarbawiga, laakiin waa inay cayaar akhlaaqi la socoto noqota. cidduu la cayaarayo waa inaad ogta, wuxuu ku cayaaraya akhlaaq xumo inaan ahayn waa inaad ogta. ma aha un markaan masalo idin tilmaamayo inay tahay mutlaqan in la sii daynayo. wax waliba waxay leeyihin wax hadaynaya limit bay leeyihin, waa inay limitkeeda yeelataa. waxaan jeclay muddo badan baa fadhideena inaan hadalka badan soo koobo. waxaan ku gabagabaynayaa masalada dilka. dilku waa ciqaab. ciqaabtana aslan wuxuu qofku xaq mutaa marka uu qaan gaadho. ilmaha yari markaa ciqaabtu qaadi karaa intay leeg goormaase la ciqaabi karaa. awalan waxaa haboon ilmaha wasiilada ciqaabtu inay noqoto shayga u dambeeya ee la isticmaalo. markuu xumo sameeyaba haddaad dangadayso berinta dangadunbuu la qabsanaya. wax kaloo samayn doontaa hadhow ma jirto dil ilaa halkii loogu dambaysay lahabad adigu ugu soo horaysiiseen. markau maanta sameeye aad disho berri uu sameeye aad disho saa dambe maxaad samayn miyaad gawricide ma haysid wax kaloo aad qabataba. maraaxisha halkii ugu dambaysay baad ka bilowda. waxa haboon ilmaha marka hore inaan la maagin oo dagaalka lagu badin. sida daraaddeed ba anas ibnu malik wuxuu leeyahy nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam weligii gabadhna ma dilin, ilma caruurana ma dilin buu leeyahy. caruur waa la joogeen laakiin weligii ma dilin baa laleeyahy. waxaan leenahay marka ilmaha waxaa haboon ciyaartiisa iyo akhbaadiisa iyo gafafkiisa in la dhowro. haddii ilmaha dilku uu ku bato wuxuu dhaxal siiyaa waxyaabo fool xun. wuxuu dhaxal siiyaa inuu beenta barto. ilan qofku markuu ogey markuu ficil ka sameeye markasta in la dilay waa inuu kuu fekeraa. hamoodin inaanu caqli lahayn wuu kuu fekeraya isna, waayo dhangadii siduu uga baxsan lahaa waa inuu ka fekeraa. marka waa inuu khidad beena kuu dejiyaa ah waxay waxan baa samaynaya ama caynka iyo caynka waa inuu wax kasta dafiraa. culamadii muslimiinta hore masalan ibnu khaldun iyo ay kamid yihiin ba waxay leeyihin ninka murabbiga ah uma haboona inuu cuquubada marka ugu horeysaba ku degdego, waayo ilmaha wax badan bay yeelaysa. waxay baraysaa buu leeyahay ibnu khaldun muqadamadiisa wuxuu ku leeyahay ilmaha qaswada lagula dhaqmaa waxa ay baraysaa bucfi, baqe,
nolosha inaanu waajihi karin, inuu been sameeyo, waxaasoo dhan baa baraya buu yihi si uu uga baxsado dilkan tirada badan leh. ilmaha goormaa la dili karaa? culamada badh waxay qabaanba, bal masaladaa dhegeysta. culamada badh kamid ah waxay qabaan ilmuhu intuu 8 jir ka yariya inaan laba dili karin. maaha hadda kuwa reer galbeedka, waa kuwii muslimiintan ka warramaya. xadiis baa jira nabigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, intuu 10 ka yariya aan idhaahdo. xadiis baa jira nabigu uu leeyahy caruurtu markay 7 jir marayso bara salaad, yani saa loo weysaysto, saa loo tukado, saa loo cibaadaysto. 7 jir markay marayaan bara. muxuu kaloo nabigu yidhi 7 jir markay gaadhaanna ku karbaasha hadduu salaada diido. salaadu waa rukunkii islaamka ugu weynaa. hadday rukunkii bacda shahaada arkaanta camaliga ugu weyn ay tahay 7 jir cuqubada uu ku helayo, alxaafid alalbani iyo culamo badan oo lamidii waxay qabaan 7 jir intuu ka yariya inaan la dilin, aanay mamnuuc tahayba. iga waxay leenahay horta sideedaba ha ku dheerayn inayna ilmaha dishaan, waa marka koowaad. laakiin sidaa la yeelaya, waxaan leenahay waxa haboon in la yeelo siyaabaha soo socda. ilmaha in wax loo sheego, irshaad in lagu sameeyo, in la tilmaamo markuu waxu samaynayo in la yidhaho waan ku arkaya inaad waxaa samaynayso, in la dareensiiyo ficilkan xun laga dhaadhiciyo inuu xun yahay oo aanu samaynin. hadday tahay uu ku joogi waayo in istabka dambe loo gudbo waa in la canaanto. sidaan u sheegaya u kala horeeyaana inaad canaanatid. canaanta haddii waxba ku qaadan waayo inaad hajri ku samayso, inaad ka guurtid. guuritaanku waa maxay? masalan inaad tidhaahdid 2 saacadood kula hadli maayo, ilmuhu muxuu dareemaya markaas? cuquub ka weyni ma jirto. markuu hooya ku yidhahda hadhow aad u suuqi weydo ee uu 2 goor kugu celiyo aad la hadli weydo, wuxuu dareemayaa dembigii uu galay inuu ciqaabtiisii tahay waxa kale. waa nooc min alcuquuba. waxaa taa ugu dambaysta lasoo gaari karaa baynu odhan karnaa inay garaacitaanku timaado. laakiin garaacistu waa goorma? shuruud bay leedahay. inaan la garaacin ilmaha kow ilaa iyo wasaaishii kale tarbawga ahaayoo dham inay socon waayeen mooyaane. waa midda labaad, inaanad ilmaha ciqaabin oo garaacin bay leeyihin markaad cadhaysanta. adoo cadhaysan haddaad tidhahda dil dawaad aada gudanayso, markaa si xumaad u dilayso. markaad cadhaysantay bay leeyihin waa inaad garaacin. marka cuquuba timaado waa inaad amaakinta xasaasiga ah ka garaacin, wejiga iyo caloosha iyo laabta iyo dhulka waa inaad ku dhufanin. waxay culamadu leeyihiin cuquubadaadu marka ugu horeysa waa inaanay dhaafin 1 ilaa 3. 1 mara ilaa 3 jeer. waxa haboon qofka cuquubadaasi la siinayo dhangada gaadhaysaa inuu ka weyn yahay 10 sannadood.